waxyaabaha elboorkan ku sameeyno kul beendigina ku arkaysa waxaan la sheegay qofka waxiis kama hadlo qol badal baa ka hadla moogta hadaa dirada waxaan sameey sharafku ma ahanis laakiin dadkeena ku hadlaana fiican wixii elboorkan aan ka sameeyna indina ku arkay meeshan afariid marka joogtay marka ma yaal jirin moogta laakiin waxaan dhiirabaa ninka maamulka cusub imaanayo meeshii aan gaarsiin meel ka fiican inuu si gaarsiin insha Allah qalbi waxaan ku faraxsanahay maanta qof aqoon leh in la qaado qof aqoon leh inta meesha loo dhiibay taas waa horumar horta hadii qofka loo dhiibi lahaa oo iga taageer ama iga aqoon yar wax kale noqon leed moota qof aqoon leh la qaado dhalinyaro qof aqoon waa loo dhiibay taas waa wax wanaag dadka dhan u fiican tahay arinta labaad waxa xiriir fiican baa meeshan uga tagay oo international community oo AMISOM ka wada shaqeyn fiican aan qabno inaan hor u sii wadaan raba insha Allah meel fiican ay sii marto meeshan waxa imaanayada iska soo gali jiray si suuqa kale qofka iska bixi jiray هذا process باجر documentation باجر شرعي باجر شرعي أصلا سي ونادي إن شاء الله أمني أهان وكلمنا دكانوا يكلمنا إن شاء الله so if I can speak English language now I would like to thank the international community starting from the AMISOM, the UNMAS and Mishuki for the UN. It is a great pleasure working with you guys and you have given me a great support and you have assisted each other making this place a better place and I'm leaving a place that I left better than the way it was before and I'm saying thank you. And I did my best so that I can make the administration a better place for all of us. So thank you very much and thank you to everybody. ودنبنا ماريا عصب عندنا شغال إسجعل ودت في عم بنكاتي إن شاء الله سي ونا جاسي حمين تيجي إن شاء الله. وحن سلام يا وزيرك ورفافينت جديدك عركي ودولك مدن عبد النور علي آذن. وحن سلام يا وزيرك مالية مدن إبراهيم حسن. وحن سلام يا مدحة AMISOM taliyaha sare ee nala fadhiyo waxaan salaamayaa wakiilka qaramada midoobay nagala jooga waxaan salaamayaa Rayaan oo asagana ah qayb muhiim maanta ka soo qayb galay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh loogu talagalay in isbedelka dhacaya garoonka caalamiga ee Kismaayo xil wareejinta maanta xafladan nagala soo qayb galay waxay ii tahay sharaf maantadan oo aan u taaganahay xafladan qiimaha badan ujeedada ay tahay maareeyihii hore maamulkii hore oo maanta xilka wareejinaya aniga oo ah maamulka cusub maareeyaha cusub ee garoonka caalamiga ah ee Kismaayo ee dawladda Jubbaland farxad weyn ayay ii tahay waxaan salaamayaa gaar ahaan maareeyihii hore ee xilka wareejiyay maareeya waan qaatay dardaaranka aad soo jeedisay iyo warbixinta aadna siisay guud ahaanba shaqadii socotay sida oo kale waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha kala gedisan qaybaha kala duwan ee elboorka aad iyo aad shaqada wanaagsan oo qabateen sida quruxda badan xafladda maanta aad u soo amirteen aad iyo aad waan idin hambalyeynaa waxaan rabaa in yaro kooban in halka kan aan ka soo jeediyo haddii aan nahay maareeyaha cusub ama maamulka cusub ee la wareegi doono laga bilaabo maanta xafladan aan u taaganahay qiimaha badan qorshaha aan sameyn doono waxyaabo badan ayaan damacsanahay inaan sameeyno maxaa yeelay elboorka waa elboor caalami ah elboorku waa albaabkii koowaad ee laga soo gal lahay dawladda Jubbaland mabda ama go'aankeedu wuxuu yahay in la sameeyo isbedel degdeg ah la sameeyna waxa ugu horeyn doona aan qabanayno koow in amniga elboorka aan xaqiijino lana adkeeyo waxaana sameyn doonaa isbedelo badan ayaanu si degdeg maartay aan u sameyn doono dhanka amniga waxaan xigaayo maamulka guud ahaanba elboorka in dawladda iyo shacabka adeegii ay u baahnayeen adeegii kala duwanaa ee elboorka looga baahnaa in dhammaan halka kan laga helo ayaan xaqiijin doonaa taas oo ay ka mid tahay isgaarsiinta maamul wanaaga isla xisaabtanka iyo dhammaan maartay wax kasta oo tasiilaad ah uu u baahan yahay elboorkan in uu noqdo elboor caalami ah la mid ah elboorada ka jira dalka intiisa kale taasaan xaqiijin doonaa sida oo kale ugu dambeyn dhammaan hay'adaha maartay beesha caalamka ee ka howlgala gudahan ama guud ahaanba gacanna si elboorkan ka soo daga waxaan oo la shaqeyn doonaa si wanaagsan aan oo la shaqeyn doonaa naxariis leh si dhow ayaan oo la shaqeyn doonaa taas oo ay ku jirto danta guud ahaanba dawladda Jubbaland shacabkeena iyo iskaashiga caalamiga marka wada shaqeyn wacan waanu isu imaan doonaa shirar baan maartay gali doonaa qorshaan soo saari doonaa waxaan rajaynaynaa guud ahaan aan ugu baaqaya shacabka adeegsada elboorka ama duulamaadyada kala duwan haday aan lahayn ganacsi haday aan lahayn shirkadaha isgaarsiinta dhamaantood in maartay ay la xiriiraan ay la soo xiriiraan maamulka cusub ayna la jaan qaadaan oo ay u hoggaansamaan awaamirta iyo isbedelada dhacdoon aad u mahadsantiin kuwa kalena waxaan leenahay sidoo kale hala sameeyo
shaqaalaha wasaaradda kuwa maaliyadda iyo kuwa wasaaradda arrimaha gudaha saddexdaba waa ku joogtaan meesha laakiin waxaan idin sheegayaa gibigiin waxaa idin xukuma maareeyaha markaa inta joogtaan kulligiin waxaa hoos tagtaan maareeyaha asagaa idin xukuma waxaan leeyahay maareeyihii hore la bedelay mata cabdiqaadir runtii waa dadaashay waa ognahay waxaad qabatay waan aragnaa maalinta xilka la wareegaysa waa fadhiya aniga wasiirka macdintaan ahaa wasiirka gaadiidka waxaa wasiirkan maaliyadda maalintaas ahaa wasiirka gaadiidka asaga ahaa wasiirka maaliyadda xafladiina waan fadhiyey maantana xafladda lagugu soo otin lahaa aan anigoo ka wasiirka oo ku soo bedelay ayaa oo amar dawladeed kugu bedelay ayaan haddana ka qayb galay xafladii waa sida dawladda lagu yaqaano waaye maaraha cusub waxaan leeyahay cabdullaahi adigana shaqo badanaa kuu taalla cabdiqaadir meeluu keenay runtii la taaban kara inaad ka sii dhaqaajiso adaa lagaa rabaa oo hore u sii socoto shaqaalahan waxaan u sheegaya ama aan farayaa haddii wasaaradda arrimaha gudaha hor kuu soo dirtay oo kastan ahayd ee aad xaggaas markii hore lagaa soo magacaabay haddii aad ahayd maaliyadda oo wasaaradda maaliyadda ku soo dirsatay halkan maxay ahayd migration aan sheega migrationka iyo kastanka iyo wasaaradda gaadiidkaba waxaa isku xukuma markay aeroboortka joogaan maareeyaha isku xukuma nin alla ninka warqad ka soo qoro waa la bedela uu yiraahdo aniga waxaan u gudbinayaa anigu soo gudbinaya anigana wasaaraddu ka tirsanayaan geynaya haddii leedahay waan bedelaynaa haddii uu mutaysta kuwa ammaan ka soo gudbiyay sidaasoo kale u sameynayna haddii leedahay ammaan uu ka soo gudbiyey ammaantaas markay igu soo dhacdo waxaan u gudbinayaa meeshii oo noo soo dirtay ninka la yidhaahda sadiiq runtii saraakiil badan aan leenahay dowlad gobolka jubbaland leeyihiin oo amniga ka shaqaysa sadiiq saraakiisha lasoo xulo ka mid noqday nin kalena waxaa loo xulay aeroboortka sadiiqna waxaan leeyahay shaqa adagaa kuu taala sadiiq oo allaha kula garab gala waxaan isleeyahay inuu ka bixi kara wax kastana amni kama soo haraan amniga boqolkiiba 90 amniga dowlad goboleedka jubbaland mabda u yeela waxa waaye dhaqaalaha iyo shaqadaba boqolkiiba 90 ama 85 in lagu bixiyo amniga waayo markaad amniga sugto ayaa wax qaban kartaa wasiirka warfaafinta gaadiidka jubbaland mudane cabdinuur cali aadan madaxa amisom ee garoonka kismaayo madaxa UN-ka nala joogo ganacsate rayaal madaxda kala gedisan iyo shaqaalaha garoonka waxaan oran lahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacd salaan kadib waxaan u malaynayaa maalintii cabdulqaadir uu garoonkan uu kala wareega maareeyay hore axmed carab ninka caqli leh uu garanaya garoonkan qaabku ahaa maantana qaabku aan u jeedinaado nin walba uu jeeda qaabku hadda garoonku marayo cabdulqaadir waxaan leeyahay uu ku mahadsan yahay wuxuuna mudan yahay in loo bahda celiyo ama loo bahda ayay arrintu tahay in mahadnaq loo celiyo sababtoo shaqo badan uu ka qabtay u mahadsan yahay waa maareeyay hore cabdulqaadir maareeyaha cusub cabdullaahi jagadoon leh waxaan u malaynayaa waa nin saaxiibkeena aad baan u garanaynaa waraggii soo dhisay jubbaland oo ah guddiyadii farsamada igaad oo 3 sano jaamacadda fadhiyey marka maanta haddii garoonka loo soo magacaabayna waxaan aaminsanahay inuu shaqadan uu qaban karo uu si fiican u qaban karo laguna aaminsan inuu qaban doono insha Allah tacaala tan kale sidaa la socotaan garoonka caalamiga Kismaayo airport waa muraayadii ama qalbiga jubbaland hadda garoonku hagaago jubbaland way hagaagaysaa sababtoo ah meeshii kaliya jidka ay ka soo galaan ajnabi iyo dadka localka naftirkooda dadka qulashay waa muraayadii mar hadday hagaagsanaato waxaan rajeynayaa jubbaland way hagaagsan tahay mar hadday halaabdana jubbaland wax ka laaban shakhsi waxba ma hadlaynin marka insha Allah labada maareeye kan tagaya hadda waan baliyeenaynaa oo waan sii sogootinayna si wanaagsan ninka cusub yimid waxaan leenahay welcome soo dhawow shaqo culus shaqo adag ku sugaya ana warka si dheeraan waa shaqadii dawladda lagu aqoonay waxa weeyaan dawladda wax bay magacaabda wax bay kala bedesha wax bay ceerisa waa shaqada ama systemka ama nidaamka dawladda lagu aqoonay noocan weeyaan anaga hadda maanta wasiirona birito meel kana aad ama birito la bedelaya waxa oo dib bay ku sugan tahay bajiro marka insha Allah taala waxaan leeyahay in idinka shaqaalihiina laba shaqaale isku dhex jirtaan oo gaadiidka iyo maaliyadda inaad u shaqaysan wadankiina iyo dadkiina idinka aan kala eegin qabiil iyo suurad iyo waxba kala eegino
idinkoo Soomaaliya oo Muslim ah oo bini'aadan wada shaqeystaan ayaa kula dardaarmaya